Asalaamu calaykum. Habeen wanaagsan. Waxaan ku rajeynayaa inay habeen qurux badan ku tahay. Muuqaalkan habeen ayaan duubayaa. Waa waqti ay ka harsan tahay saacadihii aan seexan lahaa. Wax ka yar 30 daqiiqo. Meeshan ayaan waqti ku qaatay oo aan galabtii iyo weliba subaxii gelinka hore aan badanaa aan waqti ku qaataa. Waxbarashada, wax akhriska iyo barnaamijyo kale ayaan halkan ku sameeyaa waa xafiiskayga gaarka ah. Marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago intaan seexan ka hor ayaa buugaan akhrinayay oo ka mid ahaa buugaagta bishan aan akhrinayay ayaan isdhahay muuqaal bal ka sameey oo dhalinyarada kugu xiran kuwa jecel wax akhriska iyo kuwa macnaha ku taamaya ama haddaba raba inay wax akhriska bilaabaan kaga faa'iiday. Waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabka aad u samaysan lahayd caadooyin wax akhris aad u joogtayneed wax akhriskaas aad kaga dhigi lahayd waxyaabaha aad u samaysida maalinlaha ah ee jadwalkaaga ku jira. Wax akhriska muddo aad u fog ayaan ku jiray. Muddo aad u fog bahda waxbarashada aan ka mid ahaa. Markaad waxbarashada ku jirtidna dabcan waxbaad qoraysaa waxna waa akhrinaysaa. Marka meeshaas ayaan wax akhris ka soo bilaabay waqti aad u fog. Wax akhriska aad aan u jeclahay. Wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida joogtada aan u sameeyo ee ka midka ah caadooyinkayga joogtada ah. Habeenkii waxbaan akhriyaa, subaxii waxbaan akhriyaa, galabtii waxbaan akhriyaa. Every time aan waqti u helo waxbaan akhriyaa. Marka inaan anigu kaliya waxaas ku kooban waxaan ka jeclahay in dhalinyarada raba inay mustaqbalkooda bedelaan, inay noloshooda bedelaan, ay ka faa'iidaystaan. Marka halkan yar waxaan ku soo qoray 5 adiga qodob oo aad ku dhisi kartid caadooyin oo waxtar leh. Oo haddii aad rabtid inaad caadooyin dhisatid, weliba caadooyin wax akhris aad ku dhisi kartid. Tan koowaad aad u baahan tahay waxay tahay go'aan inaad qaadatid. Dabcan go'aan qaadashadu waa waxa qofka bedela ama go'aanka waa qofka waxa bedela. Haddii uusan go'aan qaadanin yacni isma bedelayo qofka waayo wuxuu isku bedeli lahaa hadduusan go'aan u qaadanin isbedel ma imaanayo ilaa qofka uu go'aan qaato. Go'aanadan waxay ka mid yihiin waxyaabaha na bedela. Hadduu yahay go'aankaasi go'aan wanaagsan wuxuu noqonayaa go'aan markaasi ina bedela oo horumar iyo wanaag noo horseeda. Marka go'aan inaad qaadatid markaad rabtid inaad caado wax akhris dhisatid waa inaad go'aan qaadatid aad dhahdo aniga wax akhris ayaan bilaabayaa. Marka go'aankaas qaado. Tan labaad waxay tahay inaad samaysid waqti aad wax akhrisid. Waqtiga maanta waan ognahay oo waxyaabaha inoo suurtagelinaya inaan shaqaysano, inaan nasano, inaan wax qabsano. Wax noo suurtagelinaya waa waqtiga. Marka in aad samaysid waqti gaar ah ee aad wax akhrisid. Waayo dadku isku waqti maahan. Isku waqti waa la wada yahay laakiin isku waqti waxba lama akhriyo. Qof baad jecel inuu galabtii wax akhriyo, qof baad jecel inuu subaxii wax akhriyo, qof baad jecel inuu habeenkii markuu seexanayo wax akhriyo. Marka waxaad raadisaa waqtiga adiga aad leedahay wax waad akhri kartaa ee aad firaaqada tahay inaad markaasi aad bilowdid wax akhriska. Sidaas ma aragtay aad waqtigaada kaga faa'iidaystid. Waqtiyada ugu wanaagsan waxa la akhriyo waxay tahay subaxii markaad soo toostid. Anigu aad aan u jeclahay. Inta yaraan quraacanayo waxaa laga yaabaa inaan dhowr buug aan akhriyo haddii aan ka gaarsii karo. Haddii aan ka gaarsii waayo galabtii inaan akhriyo. Galabtii haddaan akhri waayo habeenkii aanan waxba akhrin horta ma seexdo. Hadduu Ilaahay caafimaad igu soo toosiyo subaxa habeenka aanan waxba akhrin ma seexdo. Waayo waxaa jira buug aan habeenkii kaliya aan akhriyo. Waan ugu talagalay haddii ugu yaraan aan ka akhri karo hal buug inaan ka akhriyo. Sariirteeda dhinaceeda ayaa qoraal iigu qoran yahay. Qoraalka xitaa haddii aad daalan tahay hal buug akhri
ayaa iigu qoran oo mar alla markii ay ishayda ku dhacdo aan buuggii kala furaa oon akhriyaa. Marka isku waqti ma nihin. Marka adiga waqtigaad is leedahay wax waad akhri kartaa bilow. Sidaa ku jadwalayso galabtii haddii aad waqti haysid galabtii bilow, subax haddii aad waqti haysid subaxi bilow. Laakiin mar kasta aad rabtid inaad caadi wax akhrisid waa in buugga aad ka ag dhowaatid, waa in buugga ka ag dhow yahay, waa in boorsadaada uu ku jiro, waa in miiskaad aad wax ku baranayso uu saaran yahay, waa in sariirtaada dhinaceeda uu buug saaran yahay si caadadaas aa u dhisatid. Tan saddexaad waxay tahay ku bilow buugaagta yaryar. Buugaagta isku xajmi maahan. Buug ayaa ka kooban 600 iyo dhowr buug. Tusaale oo kale hadda buug halkaa ii saaran oo Nelson Mandela uu qoray oo aan habeenkii akhriyo 600 iyo dhowr iyo 10 buug uu ka kooban yahay. Haddii aad wax akhris ku cusub tahay 600 oo page ma akhri kartid. Waad ku caajisaysaa, waxay noqonaysaa inaad isdhiibtid, in aad ka tanaasushid go'aankii aad qaadatay iyo waqtigii aad u qorshaysay inaad wax akhrisid, inaad ka tanaasusho ayay noqonaysaa. Marka waxaad samaysaa buugaag aad u yaryar in aad raadisid si aad ugu bilowdid, aad ula qabsatid, aad u joogtaysid. Waayo caadooyinka waxay u baahan yihiin waqti, waxay u baahan yihiin joogtayn. Marka waxaad ku bilowdaa buugaagta yaryar ku bilow si aadan kaga caajisin. Qodobka afaraad wuxuu yahay markaad rabtid inaad caadooyinka dhisto waxay tahay joogtay, maalin waliba joogtay. Haddaana wax la joogtayn lagama guul gaaro, waxay doonaan ha ahaadaano. Haddii aad rabtid inaad jirka dhistid waa inaad joogtaysid. Haddii aad rabtid inaad business aad ka guul gaartid waa in aad businesskaas joogtaysid, waa inaad product raadisid, waa inaad samaysid, waa inaad goob garaysid, waa inaad customer raadisid. Yacni waa joogtayn. Wax kasta waxa lagaga guul gaaro waa joogtaynta. Marka maalin waliba inaad akhrisid ku dadaal. Hal buug baa Allah ka dhigay maalintii hataa aad kari kartid, aad awoodi kartid hal buug xataa akhri. Marka dambe waxaad arkaysaa adigoo 4 buug, 5 buug, 6 buug, 10 buug adigoo markaa 20 buug akhrinaya maalintii. Laga yaabo buug inaad toddobaad kaga dhex baxdid. Marka maalin walba inaad akhriso ku dadaal. Qodobka labaad ayaan kusoo gabagabaynayno caadooyinka waxay tahay waxaad rabtid inaad akhrisid. Maxaan rabaa inaan akhriyo? Maxaan doonayaa inaan akhriyo? Waayo buugaagtu layskama wada qoro oo waa la wada qoraa, laakiin buug walba wuxuu leeyahay, hadday noqoto taariikhda, hadday noqoto horumarinta qofka, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto teknolojiyadda, hadday noqoto waxa la yiraahdo sirdoonka kale. Yacni buug walba title buu leeyahay. Buug walba title uu leeyahay. Marka maxaan rabaa inaan akhriyo aniga? Xagee rabaa inaan nafteyda ka dhiso? Maxaan u baahanahay? Xagee iska kobcinayaa? Xagee rabaa inaan iska dhiso? Ma xiriirkan rabaa buugaagta jacaylka iyo qisaska ku saabsan, guurka ku saabsan? Ma waxaan rabaa inaan akhriyo buugaagta teknolojiyada ku saabsan? Ma waxaan rabaa buugaagta ganacsiga inaan akhriyo? Yacni in aad fahantid waxaad rabtid inaad akhrisid. Taa waxay kuu fududaynaysaa halka aad rabtid inaad noloshaada ka dhistid. Anigu waxaan aad u akhriyaa buugaagta dadka horumariya, shakhsiyadda qofka buugaagta horumariya, buugaagta sida lacagta loo sameeyo, sida qofka uu business u samaysan lahaa, sida side hustle jobs waxyaabaha la yiraahdo shaqooyinka weekendiga la qabto. Yacni so many things oo ku saabsan ayaan akhriyaa. Ma akhriyo sayniska iyo waxyaabahan kale siyaasadda. Way jiraan buugaag yar aan ka akhriyay laakiin aad uma jecli. Marka waa inaad ogaatid waxaad rabtid inaad akhrisid. Waxaad rabtid inaad akhrisid waa inaad ogaatid. Marka 5taas qodob haddii aad samaysid waxaa hubaa oo aan kuu ballan qaadayaa in aad caado wax akhrisaa dhisanaysid. 1 inaad go'aan qaadatid, 2 inaad samaysid waqti wax akhris, 3 inaad ku bilowdid buugaagta yaryar, 4 inaad maalin walba aad wax akhriso oo aad joogtaysid, iyo qaybta ugu dambeysa ee 5aad oo ah waxaad rabtid inaad garatid ama maxaan rabaa inaan akhriyo. 5taa qodob haddaad samaysid waxaan hubaa in aad ka guul gaarayso wax akhriska. Marka 5taas qodob qoro, ku dadaal, joogtay. Caadadaas si dhab ah ayaad u dhisanaysaa. Marka intaanan ka bixin qaybtaas waan ka baxnay qaybta oo 5ta qodob
waa qaababka aad caadada ku dhisa lahayd. Marka halka waxaa kugula wadaagayaa 5 buug oo aan kuu soo xulay haddii aad rabtid inaad wax akhris ka bilowdid aad ku bilaabi kartid. Weliba aan dhihi karo waa buugaag faa'iido u leh noloshaada, wax badanna ka bedeli doona oo anigu aan akhriyay. Buuggood wuxuu yahay Dawada Murugada. Waxaa qoray Abubakar Maxamed aa qoray. Waa buug dhab ahaantii aan is dhihi karo buug af Soomaali lagu qoro ee murugada iyo fahamkeeda iyo sida la isaga daweeyo ka hadlay. Waa buug ugu qiimaha badan. Marka haddii aad rabtid buuggaas akhri. Buuggood aan kula wadaagay waa buugga Dawada Murugada. Buugga labaad wuxuu yahay waa Garaas Intaadan Guursan. Garaas Intaadan Guursan dabcan waa buug ka hadlaya guurka, reer dhisashada iyo shukaansiga iyo wax kasta ku saabsan waxa la yiraahdo guurka ku saabsan ayuu ka hadlaya. Waxaa qoray Mubaarak Haadi aa qoray. Haddii aad heli karto buuggaas aan kusoo jeedinaya inaad akhrisid. Buug saddexaad aan kula wadaagayo oo aan akhriyay bishii tagtay waxay tahay Salaad Baa i Dhaaftay. Salaad ay dhaaftay dabcan waa la turjumay. Halkaan uu saaran yahay waa la turjumay. Dabcan waa buug ku jeclaysiinaya salaada. Waa buug wax badan oo kaa qarsan kuwa iftiiminaya salaada, ku jeclaysiinaya in aad maalin walba aad joogtaysid salaada. Haddii aad maanta tahay dadka zigzagga dadka salaad tukada salaad kale ka taga haddii aad tahay wuu ku hagayaa. Wax badan oo kaa qarsan ayaad ka baranaysaa salaada. Buuggaas waa la turjumay waa helaysaa. Waxaa la yiraahdaa Salaad Baa i Dhaaftay. Waa buugga saddexaad. Buugga afraad aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay buugga Dambaalada Quraanka. Hadda ayaan akhrinayaa aniga. Weliba wax yar ka hor intaan muuqaalka bilaabin ayaan 10 buug ka akhriyay. Halkaasuu ii saaran yahay. Hadduu ii socdaa wax yar igaga dhiman bishan inaan dhammeeyo aan ku tali jiraa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Dambaalada Quraanka waa buug aan dhihi karo markaad akhrinaysid waad ku raaxaysanaysaa. Markaad akhrinaysid aayad weliba waxay ka hadlayso nolosha iyo waaqica jira iyo wax kasta ku saabsan Quraanka ayuu ka hadlayaa. Waana buug aan lahayn buug aan isku xigxigin oo sheekooyin taxanaha aan lahayn, laakiin aayado fara badan oo Quraanka ku jira aayadba mar inta laga soo qaato nolosha iyo wixii nolosheena caadiga lagu qiimeynayo. Marka buugga Dambaalada Quraanka raadi akhri. Wax badan ayaad ka faa'iidaysaa. Buugga shanaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay The Productive Muslim. Maxamed Faris nin la yiraahdo qoray buuggan. Waxaan akhriyay January sanadkan 2025 ayaan akhriyay. Wuxuu ka mid ahaa buugaagtii 2021 aan ku qortay buuggayga xasuus qorka inaan akhriyo, laakiin nasiib maan u helin. Intaasoo sanadood ayay igu qaadatay, laakiin ugu dambeyn 2025 bishii koowaad ayaan waqti u helay inuu ka mid noqdo buugaagtaydii waana akhriyay. Asagoo af Soomaali wuu jiraa. Waxaan u maleynayaa Muslimka wax soo saar kale inuu yahay. Dabcan marka raadi asagoo af Soomaali haddaa heli kartid raadi buuggaas akhri. Wax badan ayuu kaa caawinayaa. Wax badan ayaad ka fahmaysaa halkay iska soo galaan wax soo saarka iyo qofka Muslimka halkuu iska soo galo. Muslimada iyo wax soo saarka halkay iska soo galaan waxyaabo aad u fara badan, macluumaad fara badan ayaa ku duwan. Maxamed Faris aa qoray. Marka 5taas buugag ayaan jeclaystay inaan kula wadaago iyo 5taas qodob oo aad rabtid haddii aad rabtid inaad caado dhisatid aad ku dhisi kartid. Marka mowduucan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Haddii aad akhrista tahay waxaad qayb hoos igula wadaagtaa buugaagta aad akhrisay sanadkan socda ama sanadkii 2024. Anigana sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa buugaagta aan akhriyo haddii aad akhrista tahay iyo buugaagta aad jeclaan lahaa inaan markaa aad akhrisid. Haddii aad akhrista tahay ayaan kula wadaagayaa. Waa inoo muuqaalka waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.